waxa la yiraahdaa mididu soofa kama maaranto waa hadii la rabo in ay si fiican wax u jarto sidoo kalena qalinka tirtiraha ee wax lagu qoro qorriin kama maarmo hadii la rabo inuu far fiican qoro qofka bini aadankina kama maarmo inuu wax barto hadii uu rabo inuu bulshada uu ku dhex nool yahay sumcad iyo karaamo iyo sharaf ku dhex noolaado waayo cilmigu marka laga yimaado inaad hanti ku hesho iyo wax kororsi aad ku hesho shakhsiyan ayuu ka dhigaya qof ka aragti iyo muuqaal ahaanba ka duwan qofka aan wax baran waxa ugu weyn ee qof wax bartay iyo qof aan wax baran u dhaxeeyay waxay yihiin in nafsiyan ay kala dareemi karaan inay mid walba wax walba u cad yahay iyo inay mid walba midka kalena aan wax baran ay wax walba iskaga jiraan marka waxa aad iyo aad u muhiim ah inaad saddex shay kordhintooda aad subax markuu waagu bariyo aad ka shaqayso aad u kordhisan lahayd qodobka koowaad waxa uu yahay sidii maankaaga iyo maskaxdaada iyo aqligaaga aad cilmi ugu korin lahayd waa inaad ka shaqayso oo waaga bariyay waa mid ku tirsan waa maalin ku dhaaftay aan dib kugu soo noqonin wixii aad ku qoratay wixii aad gashatay wixii aad ku darsatay ayuun bay leedahay qodobka labaad ee isna muhiimka inaad kordhisay waxa weeyaan dhaqaalahaaga waxa weeyaan wax walba waxa kala wadaya kala maareynaya ku kala socdaan waa dhaqaale hadii rabbi caafimaad ku siiyay lixaadkaagu ku dhameystiran yahay atahay qof dhalinyar waliba atahay qof dhalinyar atahay waqtigan jooga inaad dhaqaale samaysay laasim bay kugu tahay waayo noloshaadan maanta way ku fiican tahay ku qurux badan tahay wax yar aad u baahan tahay laakiin maanta halka taagan tahay hadaad si dhaafto awoodaaduna way sii nusqaami doontaa mas'uuliyadaha iyo wax laga baahan way badan doonaan midka kalena waxa weey dadka bulshada ku dhex nooshahay waa in aad barashadeeda iyo waxtarkeegu maalinba intii aad shalay taqaan uu kaaga bato geographically waxa la yiraahdaa marka wax la dhiganayo ama cilmiga bulshada iyo deegaanka la dhigay waxay ka bilaamataa isdhexgalka bulshadu waa qoyskaaga ka bilaamaysa haddana waxa ku xigay deriska iyo dadka jaarka kula ah haddana waxa ku xigay xaafadda aad degan tahay haddana waxa ku xigay magaalada aad degan tahay saasay gobol iyo maaragtay wadan iyo adduunyo ay u gudbaysaa waxa laga rabaa in aad barashada dalka iyo isdhexgalka bulshada iyo waxtarka dadka ay noqoto mid dhaqan iyo caado aad ka dhigato oo markii aad adigu hadii mustaqbalka aad siyaasi noqonaysa marka aad dan leedahay aad u soo bixin hadda aad danka maaragtay dabeecad ka dhigato caawinta dadka jilicsan iyo gargaaridda ku waliita iyo maaragtay waxtariska bulshada ku dhexnoshay aad iyo aad bay muhiim u tahay waayo waxaad noqonaysaa factor dadkuna ay ku xisaabtamaan dadkuna wax ku soo celiyay marka waxa aad iyo jeer inoo muhiim ah in aynu qurxinta nafteeda iyo qaabinteena ka shaqeyno insha Allah koorsooyinkii